kumanaan traders ayaa waxay khasaare aad iyo aad u weyn kala kulmeen newskii sida weyn shalay loo sugayay ee soo baxay xalay saacadu markay ahayd 9 fiidnimo xilliga Geeska Afrika xilliga maxalliga ahna aan u naqaano 3 saac oo habeenimo newskan oo ahaa FMOC ayaa dad badan waxa ay sugayeen inuu sal noqon doono laakiin waxa dhacay wax aan la filayn laakiin suuqyada iyo dadka waaweyn ee shirkadaha ay filayeen in suuqu halkaas aad doono laakiin sababta dad badan ay u filayeen in newskan uu sal noqon doono waxay ahayd narrative la abuuray oo social media la geliyay dad badan oo social media isticmaala ayaa waxa ay sheegayeen in newska soo bixi doono 29 dad badan ay sugayaan ee farms uu noqon doono sal marka dad badan waxay qorsheysteen in newskan uu sal noqon doono laakiin ciyaar ayaa la ciyaaray dadka oo shirkaduhu iyo suuqu way dareensanayeen in suuqu uu bay noqon doono waxa muuqaal ku sheegi doonaa 3 dhacdo oo suuqa bay ka dhigtay oo sidii la filayay suuqa ka bedeshay qodob koowaad waxa uu ahaa interest rate oo aan waxba laga bedelin dadku waxay filayeen in ay jiri doonaan in interestiga wax laga jiri doono oo suuqu sidaas salku noqon doono sidoo kale madaxdu ay hadallada ay jeedin doonaan ay soo dari doonaan in mustaqbalka dhow rate-ka la sameyn doono taasi ma dhicin oo suuqa waxa ay bedeshay jihadiisii qodobka labaadna waxa uu ahaa suuq buu filayay ayaa la yiri in arrintan ay dhici doonto suuqa ayaaba sii ogaa ay leeyihiin falanqayaashu qodobka saddexaadna waxa uu noqonayaa gudoomiyaha Fed ninkan cusub oo hadda dadku ay u bixiyeenba yes manka Trump ayaa waxa uu sameynaya leeyahay wax ballanqaad ah oo mustaqbalka dhow la xiriira in rate-ka ay sameyn doonaan waxa uu si cadna ugu adkaystay in hadda aan waxba laga bedeli doonin dulsaarka marka intaas oo la isku geeyay ayaa shala suuqa maxal waxay ka dhigtay suuqa inuu buy aado oo lacagta gooldiga iyo USD-da iyo Bitcoin-ta lacag badan ay buy aadaan oo maadaama newskan news aad u weyn ahaa oo dad badan ay sugayeen oo islahaayeen ay ka faa'iideystaan suuqyada dhan uu saameynayay guud ahaan dhaqaalaha waxa dhacday in jihadii la filayay uu iska bedelay noogu reeb commentiga adiga haddii aad ka mid ahayd dadkii la gaaday iyo haddii aad ka mid ahayd dadkii shirkadaha qiyaanadooda fahamsanaa ee suuqa buy u galay sidoo kale haddii aad u baahan tihiin USDT qiimaheedu uu jaban yahay account deposit iyo withdraw nagala soo xiriira lambarka profile-ka saaran mar walba ku xirnaada oo exchange